hebelow dhintay haddaad maqashana noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay aakhiraduna way bilaabantaay iyadu dhammaad ma leh haddaad maqasho hebelow dhintay noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay aakhiradii weyna ka badnayd baana u bilaabantay hebel baa go'ay innaku markaan maqallo markaaba waxaa la isweydiiyaa dadii adduunye muxuu ka tegey caalamka samada dadka khalqiga ku nool ee malaa'igtuna waxay isweydiiyaan hebel maxaa ka soo horreeyey innaku markiiba waxaan isweydiinaynaa markaan maqalno hebel baa go'ay muxuu ka tegey laakiin malaa'igtu waxay isweydiinayaan maxaa ka soo horreeyey nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waa kay noo sheegay lahaa meydka marka la qaadaayo buu nebigu yidhi degta la saarto ee nacashka la saaro naftaa la sii waday hadday ahayd naf wanaagsan oo ilaahay taqaana oo adduunka dusheeda ilaahay amarkiisa qaadatay hadday ahaydna waxay leedahay anu waan liibaanay horay ii geeya bay leedahay qabrigayga horay ii dhiga haddii naftaa la sii wada ay ahayd naf ba'an oo xun oo mujrimada oo dembi badan oo shar badan hadday ahaydna waxay leedahay tani way khasaartay halkee baad ku waddaan hadalka naftaasi ay leedahay cid kasta ayaa maqlaysa buu rasuulku yidhi ilaa jinkiyo insaga un baanan maqlayn hadday labadaa la maqashiin lahaana dadku ismay aasayna way argagixi lahaayeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maanta waa adduunya berri waa aakhiro weeyaan maalin buu nebigu arkay saxaabadiisa iyagoo meel fadhiya oo sheekaysanaya laanna saxaabadu bashar bay haayeen cabdilaahi bni cumar bnukhadaab baa lagu yidhi asxaabta nebi maxamed may qusli jireen haa way qusli jireen buu yidhi laakiin iimaanka qalbigooga ku jira ayaa buuraha ka weynaa buu yidhi malaa'ig may ahayna bashar bay haayeen sida innaku aan u shaqaysanayeen sida innaku reereeyo ubad aan u leenahay si ka badan bay u lahaayeen laakiin qulubtooda waxaa ku weynayd ilaahay baa ku weynaa diinta ayaa ku weynayd aakhirada ayaa ku weynayd maalin maalmaha ka miduu nebigu arkay jamac asxaabtii ka mid oo meel iyakoo fadhiya marka ay sheekaysanayaan oy dhowla caddaynayaan ee qosqoslayaan markaa buu nebigu ku yidhi low aghartum dikra haadimi laddaat la shaqalakum cama araakum canhu yacni almowt haddaad macmacaan dumiyaha xasuustiisa iyo sheekadiisa aad badsan lahaydeen buu nebigu yidhi qosolkaa aan nigu arkaayo waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii asxaabtii nebi maxamed ay u baahdeen mar walba inuu nebigu dul joogo uu ilaahay xasuusiyo uu dhimashada xasuusiyo uu aakhirada xasuusiyo innakoo maanta zamankan joogna zaman alfitan zaman fitanta iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaallana inteen uga baahi badannahay asxaabtii nebi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahay la kulankiisa aakhira inay jirto in lagu xasuusiyo inuu qabri kaa dambeeyo in lagu xasuusiyo waa arrin lagama maarmaan oo kulligan aan u wada baahannahay haddaad badin lahaydeen buu nebigu yidhi macmacaan dumiyaha warkiisa iyo sheekadiisa qosalka aan nigu arkaya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maad haleesheen maanad qososheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waagii barye iyo gabalkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadamku u sii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay anu gurigii keliga ayaan ahay anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay anu gurigii madoobaa baan ahay waxaad iga shaqaysato uunbaad isoo dhiganayso iga heli doontaa nin reer madiino ansaariya janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam markii qabrigii la geliyey iilka la duldhigay ayuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tahbiit fa innahu al'aana yus'al buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaalkiin ilaahay dembidhaaf u weyddiiya su'aashii qabriga hadda la weyddiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weyddiiya haddaa su'aashii qabriga la weyddiinayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo su'aasha qabriga waa maxay waa saddexdaas su'aalood weeyaan man rabbuka man nebiyuka maa diinuka mar allii markaa qofka innagu aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la maqashiin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba malag baa u iman doonta alfataanaan deedna way fadhiisinayaan qofka saddexdaas su'aalood bay qof walba weyddiinayaan hadduu boqor yahay waa la weyddiin hadduu caalim yahay waa la weyddiin hadduu maaragtaane weli yahay waa la weyddiin hadduu faasiq yahay waa la weyddiin bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su'aalood waa lala sugi doonaa man rabbuka ayaa ku rabbaynayey ayaa ku quudinayey ayaa ku arsaaqayey ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd dhaqankaagu muxuu ahaa maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay man nebiyuka ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaannay marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanaayey ee iimaanka qabay
إلهي بعد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد إلهي تبارك وتعالى قفك مؤمنك إيمانك قبا صدح ذا سؤالو ذا قبرك قفل بلقوة دينيو إلهي بقفك مؤمنك كسيق دونه إلهي بس جوابته حليشين دونه ولا ليال إلهي نهي نقصه الله نقصه الله نودي بريو صدح ذا سؤالو ذا قفك سلوي دين دونا مركا مؤمنك أدوية دوشيد إلهي كقبقا يي إلهي ما أركن لكن رماه مخلوقا كو موغدا مخلوقا أركيسا لكن خالق لما أركا دونك أنت اللي جوغو جركا أركيسا لكن روح لما أركو الدوية أركيسا لكن آخرة لما أركو أنت دونك اللي جوغو منافع العقد أركيسا لكن منفعة الصلاة دي منفعة الثواب كما أركيسد وغيب آخرة تالقو تسندونا شيء كما أنت مشاهدات كإنه موغدا أي هدوت ولا نقون دونا مغيبات وحكا قرصون ويبو نقون دونا شيء غيب كما أنت كا قرصون وحاو نقون دونا وحورت هذه مدود أركتو أيو نقون دونا ما أنت أدوية دا إنه موقتا آخرة إنه موقتو لكن قفكو مركو أدوية دا كي انتقالو دينتو لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غضاءك فبصرك اليوم حديد وحل أورندونا داهي حجاب أيا كاسرنا نولشن لكن ما أنت داهي حجابك كاسرنا وان كاقادني أرقاقو بوا حديد بقفك اللي أورندونا وأدوية دي بان نقون دونتا مش غيب بين نقوني دونتا عيال كيسية دبر كيسية داري كيسية أدوية ديسي يا العقد ديسي ولا قريني دونا وحمركا واركي دونا عمل كي أدوية وصوقبتي هدو الشر أهانا وحواركي دونا عقوبة ديسي عرديسي هدو عقوبة دي إلهي عردي بو أركيا هدو خير أهانا ثواب كي أجر كي خير كي حسنات كي بو أركيا أدوية دي وحي نقون إسا وحكا قرصومي آخرة دينا وحكو موقتين نقوني دونتا مركز marka ilaahay tabaaraka wa taala adduunka inta aan joogno lama arki karayo laakiin aayaadka ilaahay baa la arkaya wa min aayaatihi al-laylu wan-nahaar habeenku aayad weeyaan aayad waa maxay macnaheedu waa calaamad ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo maalintu waa calaamad ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo guga iyo jilaalku waa calaamad ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo noloshiyo geeridu waa calaamad ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo labiyo dhidigu waa calaamad jiritaanka ilaahay lagu garanayo فقرك يقينه وعلامة إلهي لقو قرنه جريتان كيسا عالم كان صدو السعودة واحد كده حر كيسا إن إلهي النظام كيسو عالم كو شقين أيو لكن النظام كإلهي عالم كانوا كم معمول أيو والنظام غيبه ولا ينقى غريه ما أركي كرينه سيدا الروح دا جركا كجرت إشاد وعيسانو أركي كرينين عنت دقدقاء أركيسا دكت مغل كيقاد أركيسا لقت سعود كيقاد أركيسا مدح دقاقيسا أركيسا لكن روح دا بني آدم كما أركي كران لكن قال يا إسلام هل مركو قف كدنتو انتو بقفك كدنتو وويان هذا ترى هذا محل اوي واقن قفكي قاعن كما قوين لغنا كما قوين دقلا كما قوسن ودن يحي جركيسي ودن ودن يحي محل اوي هدي لي هذانا كل وضوحي اليهن شيء قيمها الهبا ماشي كبحي شيء قيمها لو محي والروح دي والروح ده ما دركتي مي سيادو قرنيسا